maayarka magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay eedeymo uga yimid ciidamada qaranka Soomaaliland kuwaas oo ku eedeeyay inay bixinayso dawladda hoose magaalada Hargeysa dhul ay iyagu leeyihiin. Kulankan waxaan u qabtay inaan laba qodob ku iftiimiyo labada qodob oo kala ah walaantii ciidanka qaranku waa ciidan haybad iyo sharaf inaga mudan waa geesiyaasha dalka difaacayay inaan anagu wax u qabanno mooyaane wax kama xumayno laakiin shakhsiyaad ka hadlaya danahooda gaarka inay adeegsadaan magaca ciidanka qaranka wax laga xumaynaya waa mushkilad inteeda leh cid walba way ku jirtaa cid wanaagsan iyo cid xun iyo cid dacwoonaysa oo ka dacwoonaysa amba gaha helaan amba laga helay way ku jiraan oo dadka runtii waxaan aad uga naxay in ay muxuu ahaayay inta media soo istaagaan ayagoo dariiskii xidhan ka hadlaan qodobo u baahan inay xafiisyada sharciga maraan arrinkaasi oo ah ma jecli in tallaabo laga qaado waxaa laga yaabaa askarteedii oo khalad ka dhacay laakiinse waxaa jirta dhul ka laydhaa afar-laatanaad waxaa la bixiyey waqti dheer oo caw ka ahaa madax muxuu ahaa dowladda hoose oo maayar ka ahaa waqtigaa afar-laatanaad la bixiyey afar-laatanaad dhulka ahayd iyo waxayad waa la yaqaanaa waxaa jira dhul kaloo agteeda ahaa oo beer ahaan jiray dadkana laga qaaday dhulkaasi ciidanka wax ka mida ayaa la siiyey go-aankooga iyo go-aan madaxweyne ku-xigeenkii waqtigaasi muxuu ahaa Axmed Yuusuf Yaasiin oo odaygii sheekh ahaa masaajidka ka kacay u qoray labada qodob bay isku yaalay sidoo kale wuxuu maayarku ka hadlay in sheekha oo sheegay in gebi ahaanba xaafadu uu degan yahay isagu ay ka goosatay magaalada Hargeysa dawladda hoosena aanay la xisaabtami karin hadaladiisina waxaa ka mid ahaa maayarka waxaan ka hadlayaa xalay waxaa tiifiyaduna ka baxay sheekh cid uu shaqaynayo hay'adaha ammaanku ay baari doonaan cid uu shaqaynayo kana hadlay inuu xaafad ka goostay magaalada Hargeysa uu yiri xaafadda Faarax noo 5 sanadood dawladda hoose ma soo geli karto adag way ka kortay magaalada xilligii sheekh intuu meel ka dhawaaqo uu oranayay xaafadda aan maamula dawladda hoose waxay diyaarisay mashruuca ah wax wada qabsiga boqolkiiba 60 in ay dawladda hoose bixiso ay cashuurtii ka bixiso ay dadweynuhu lahaayeen boqolkiiba 40 kana in dadku keenaan contribution wadooyinka magaalada waxaa lagu dhisaa sidaasaa lagu dhisaa laakiinse dhici mayso intuu sheekh sibid iyo soo qaado ciid aan China lahayn muxuu ahaa garaadna lahayn oo muddo ku baabi'i doona inuu yiraahdo tanaa ka jaban oo caynkaa xaafadda dawladda hoose ma soo geli karaan dadka ilaalada ma soo geli karaan adag waan maqaanaa dadka waxaa ka shaqeeya waxaan leeyahay hay'adaha ammaanka Sheekh Mubaarak cid uu shaqeeyo halka uu shaqeeyo waxaan ka sugaynaa in hay'adaha ammaanku tabagalaan ay arrinkiisana ka warayaan Axmed Kulmiye Kalson TV magaalada Hargeysa.